ciidamada booliiska ee magaalada Hargeysa ayaa waxay goordhaweyd xabsiga u taxaabeen agaasimihii guud ee telefishinka Universal ee Somaliland. Haddaba xariga agaasimahaas si telefishinka Ariel faahfaahin uga helo waxa hadda barbarkayga taagan Cabdirashiid Cabdiwahaab waa wariye kamid ah wariyaasha magaalada Hargeysa ee telefishinka. Maxaa agaasimihii lagu xiray? Badri aad baad maasan tahay. waxay kala soo hadlay xarunta CID-da wuxuu ugu yiri waan xiranahay laakiin ilaa hadda faahfaahin lagu xiray iyo waxyaabo ay xukuumaddu xabsiga ee xariga agaasimaha ay u aaneynayso ilaa hadda ma ogin laakiin waxaan ku cadeyn karaa inuu xiran yahay oo xarunta CID-da ku xiran yahay. inta xog warar aan arinta ka raadinay waxa ay sheegayaan in warar lidii ku ah Somaliland abaahiseen oo dhowr jeer leedii ka digay sidaas miya kuwa ma ogi anigu aan TV-gu inuu warar lidii Somaliland ku yahayna mana sii deynin anigu shakhsiyan ma ogi laakiin xariga agaasimaha inuu xiran yahay oo xarunta CID-da ku xiran baan ku cadeyn karaa.